bal ila arag sawirkan qofkan wuxuu u socdaa masjidka qofkaana masjidka ayaa loo wadaa runtii sawirkan wuxuu bedelay dareenkayga waana xaqiiq aanan indhaha laga qarsan karin suurtagal adigana haddaad fahantay micnaha sawirkan iyo wax uu yahay in dareenkaaga adna uu bedelay maanta muuqaalkan iyo sawirkan ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago si koobanna aan idinkugu sharxo si keena aanan ogeyn waana ugu noqoto keena ogna xusuusin ay ugu noqoto labadan qof waa laba qof oo kala duwan yacni kala shakhsi ah balse waxay u socdaan isku meel hal goob oo ah masjidka beydka alle qofkan isaga ayaa masjidka u socda oo lugihiisa ku aadaya balse qofkan waa loo wadaa masjidka oo waa la geynayaa tanina waxay muujinaysaa bannaankana keenaysaa muhiimaddu salaadu leedahay iyo in aanan si fudud lagu dayicin salaada haddii inta aad nooshahay caafimaadka qabto xoogga iyo awooddana aad hayso aadan masjidka si toos ah aadan u gelin waxaa dhici doonta maalin masjidka lagu gelin doono jiif yacni masjidka lagu gelin doono adigoo meyd ah awood iyo caafimaadna aanan lahayn sida kuu muuqata sawirkan qofkan waxaa masjidka uu gelayaa isagoo lugihiisa ku socda qofkaanina waa meyd oo si jiif ayaa loo wadaa masjidka ayaana la gelinayaa labadan sawir waa iska tusaale ogowna isku mansab ma ahan labadan qof haddayba jiraan maxaa yeelay qofka masjidka aadaya salaad kasta salaadaha faralka ahna xifdinaya lama mid aha qofka aanan masjidka aadayn salaadahana aanan xifdinayn adigoo sanad 2 ilaa 3 sano masjid aadan gelin oo misana sidaas ku geeriyooto sidee xaalkaadu noqon soo masjidka laguma gelin doono jiif soo iyadoo lagu wado laguma gelin doono masjidka aadan aadi jirin adiga oo nool caafimaad qabay wax walbana samayn karay laakiin maalinkaas waxaad noqon doontaa marti aanan sidii loogu talagalay loo casuumin marti orod ku timid orodna ku baxda imise qof ayaa iyagoo isbitaallo ku jira sariirahooda ku dukada salaadaha imise qof oo aanan 6dooda lixaad aanan dhammaystirnayn dukada salaadaha imise qof ayaa iyaga oo safra ooga salaadaha kumanaan ama malaayiin qofood oo ku kala nool daafaha koonkan aan dushiisa ku noolnahay ayaa dukada ilaaliya salaadaha iyagoo jiran xaaladeysan caafimaad buuxana aanan qabin qaarkoodna 6dooda lixaad aanan dhammaystirnayn halka qaarkeen aysan xitaa hal salaad iska gudayn iyagoo wax walba alla u dhammaystiray bal iska daa in aanan la dukan salaadee bal eeg sida raggan ay u xifdinayaan salaadaha xitaa iyagoo ku jira kuna safraya gudaha badweyntan muuqaalkan in yar ila daabo kilibkan muuqaalka ah laakiin xambaarsan micno gaar ah waa mid si gaar ah uga turjumaya cabsida ku jirta raggan iyo in si fudud aysan u seegin muhiimadan gaarka ah raggan muuqooda aad aragtid waxay isugu jiraan dhalinyaro iyo odayaal kaluumaysato ah waxay bartamaha baddan weliba doontan korkeeda ku dukanayaan mid ka mid a salaadaha faralka ah ee alla waajib yeelay balse laga yaabo in dad badan oo firaaqo haysta in aysan xitaa dukan hal salaad waxa kale oo la yaabka leh ayaase ah in dhammaantood ay dukanayaan sidoo kalena aysan jirin cid wadda doontan hadda ay ku dukanayaan waxay muujinayaan in si fudud aanan lagu dhayalsan salaada wakhti kasta iyo goob walba aad joogtidba salaadu waa furaha guusha qofkii dhayalsada kana tagana wuu qasaaray fadlan walaal duko inta aanan lagugu dukan xifdi salaadaha masjidkana gal inta aanan lagu gelin muuqaalkii maanta intaana ayaan ku soo koobayaa haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar siina share garay si uu u gaaro asxaab fara badan tani muuqaalkeena xiga maalinta berri waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaano allah